muxuu yahay hubka ay dalalka caalamka u kala ordayaan? waxaa sanadihii dambe dunida ku soo batay hubka casriga ah ee ay soo saarayaan dalalka horumaray, kuwaasoo ay aad uga iibsanayaan dalalka ku jira xifaaltanka military. kaga bogo muuqaalka oo dhammaystiran insha allah. waxaa sanadihii dambe dunida ku soo batay hubka casriga ah ee ay soo saarayaan dalalka horumaray, kuwaasoo ay aad u iibsanayaan dalalka ku dhex jira xifaaltanka military. dalalka soo saara hubka casriga ah ayaa waxaa ka mid ah Ruushka, oo dhowaan casriyeeyey gantaalada difaaca cirka ee S-300, kuwaasoo haatan loo yaqaano S-400. hubkaasi oo ilaa iyo hadda ay iibsadeen dalal badan oo ka mid ah dalka Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya. hubkan gantaalada difaaca cirka ee S-400 ayaa ah hanaan casri ah oo lagu difaaco hawada. hubkan oo naqshadeyntiisii ay bilaabatay sagaashameeyadii waxaa samaysay shirkadda Almaz Central Design ee dalka Ruushka. hubkan ayaa waxa uu bedelay hanaankii difaaca cirka ee S-300 iyo S-200, kuwaasoo ay horey u isticmaali jireen ciidamada cirka ee Ruushka, waxaana la sheegay in uu yahay kan ugu casrisan ee haatan dunida laga isticmaalo. gantaalada difaaca cirka ayaa waxaa si rasmi ah loo sameeyey sanadkii 2007, waana noocii ugu horeeyey la rakibay isla sanadkaas. ciidamada cirka ee Ruushka ee ku sugan koonfurta dalkaas ayaa hubkan loo geeyey sanadkii 2012, waana ciidankii ugu horeeyey ee adeegsada hubkan, inkastoo aan weli lagu dagaalgelin. hal dhuun oo ka mid a gantaalada hubkan ayaa la sheegay inuu ku rakiban yahay 32 madfac, waxaana taas ay ka dhigan tahay in halkii xabo ee gantaalada ay ku rakiban yihiin 256 madfac. gantaaladan ayaa u kala baxa dhowr nooc oo kala ah: kuwa ridada dheer oo wax ka difaaci kara masaafo dhan 400 kilomitir, kuwa ridada gaaban oo gaari kara 250 kilomitir. hubkan ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu burburiyo wax walba oo casri ah oo lagu dagaalamo, haddii ay ahaan lahayd diyaaradaha dagaalka, taangiyada, gujiska iyo baabuurta gaashaaman ee dagaalka. inta badan sababta ay dalalka caalamka ku doorteen hubkan ayaa ah inuu yahay mid siyaabo kala duwan loo adeegsan karo. hanaanka difaaca cirka ayaa loo adeegsan karaa sida lidka diyaaradaha, weerarada dhanka cirka, bartilmaameedka, iyo in si caadi ah uu u ogaan karo wax walba oo soo gala hawada dalkaas. telefishinka RT ee xaruntiisu tahay Ruushka ayaa sheegay in qalabka uu ka samaysan yahay hubkan S-400 ay dalalku u doorbidayaan maadaama uu qiimo ahaan ka jaban yahay kuwa reer galbeedku sameeyo. TV-ga RT ayaa sheegay in halkii xabo ee hubkan S-400 ah uu ku kaco lacag dhan $5 bilyan, halka qalabka u dhigma ee Mareykanku sameeyo uu yahay $1 bilyan. dhanka iibsashada marka la eego, Ruushka ayaa shuruudo badan ku xirin qalabka S-400 dalalka iibsanaya, halka Mareykanka uu shuruudo adag ku xiro dalalka iibsanaya hubkan gantaalada difaaca cirka ah.